الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan aad idin salaamayaa dadweynaha reer Bali-gubadle sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad noo soo dhaweyseen ee caadada idin ahayd gobonnimada soo dhaweynta farxadda qalbiga furan iyo hadallada wanaagsan ee niyadda noo dhisaya ee dhiirigelinaya sidaad weligiinba halganka iyo meesha ku jirtaanba aad doon uga cayaari jirteen maanta la ka muujinaysaa aad iyo aad ka maadalin goobtan aynu taaganahay sidii loo wada sheegay waa meel taariikh leh waa meeshii laga xoreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland dalka Soomaaliland xaruntii SNM ee halgankii dheeraa ee qaraara u soo gashay inay dadka ka xoreyso dilkii iyo nacii iyo dhibtii iyo loo geysan jiray iyo xasuuqii ummadda loo geysan jiray walaalkii lagu xoreeyay waa meeshii taariikhda ahayd waa dhintii aanu fadhiin jiray waa halkii xaruntii ahayd weydinka halkan daasadaan wax ku xir jiray soo ururiyey weydinka kobtii aanu taagnayn soo sawireysana waxa loo muujinayo dhirtana waa dhintii aanu fadhiisan jiray taariikhdaasi waa mid laba ilaabaana waxaanu maanta u nimid inaanu dhagax dhigno sidaanu horeba u ballan qaadnay taariikhda laba ilaabaanka ah oo halkan xarun lagu xusuusto xoreyntii Soomaaliland iyo taariikhdeeda oo ay noqoto mid aan weligeed lumin ee taariikhda ku jirto muuqata ay noqoto markii aanu joognay iyo mar walba dadweynaha halka jooga halkankay soo mareen iyo dhibaatadii culayska fuuriyay wuu ka weynaa cid kasta iyo meel kasta wuu ka weynaa meel si gaara loo tooganayay ahayd meel si gaara liishaanka loo saarayay ahayd meel culays badan la saarayay ahayd waxaan leeyahay sabir fara badan baa yeelateen waxaa muujiseen geesinimo fara badan baa muujiseen wanaag fara badan baa muujiseen ilaahay ka jisaaysiiya ayaanu leenahay waan qirayaa muddooyinkii badnaa halka dhowrkii jeeraanu meesha tan nimid ama markii olala lagu jiray ama markastaba noqotee waxaanu ballan qaadaynay inaanu xarunta tanna samayno aanu dhagax dhigno waxaanu kula ballan qaadaynay baahiyaha gobolku tirsanayo ee uu tirsanayo deegaanku tirsanayo ee wadooyin leh ee ceelal leh ee hawlo badan leh inaanu wax ka qabanno insha allahu tacaala mar walba waanu ballan qaadaynay waxaan idin sheegaynaa horta muddadii aanu jiray muddo runtii saa u dheer ma ahayn marka la eego cibri dowladeed oo dee baahi badan jiraan waana garan kartaan dalka oo dhan baahiyaha jira intuu tiro leegyahay baxad leegyahay waad malay kartaan waa fahmi kartaan waxa weeye waxaanu ka xistiyaynay aan waxaanu kala hadhaynay ma ay jirto laakiin iminkana waanu ku taagannahay ballanqaadeeda goor kasta noqotee inaanu ka qayb galno aanu jecel lahay in dadweynuhuna isaguna uu gacan ka geysto oo aanu isku hadlayn dawlad itaalkeeda aynu maray karayno ictiraaf baynu haysanno weli mucaawininkii dunidu sidaynu doonay inuma soo gaadhin innaga dhaqaalo badan inooma dhalan inkastoo aynu muddada yaraynu jiray sidii iminkaba laga wada warramayay aynu dadaal fara badan ka geysanay dhinac kastaa noqotee dhinaca tacliinta iyo dhinaca waxqabashada iyo dhinaca shaqaalaha iyo dhinaca ciidamada mid walba ha noqotee aanu tallaabooyin badan ka geysanay insha allahu tacaala waanu ku sii wari doonnaa ballanbadii aanu qaadnayna gacan baanu ka geysanaynaa waa isugu tegi doonnaa waa wada shaqayn doontaan waynu wada shaqayn doonnaa idinkuna qaybtiinna ka qaadan doontaan insha allahu waanu fulin doonnaa waanu ku dadaalaynaa بإذن الله الكريم إنه مرء إنه سعده وأركتان يلو wax ka ruubeen inta koreysana waxa leenahay samriyaad kaysnoo yeesha muddo dheer ma aan joogin waqti dheer ma aan joogin laakiin uu naga horeeyaa waqti baynu haysanaa dadaal badan waynu wada galaana waynu ku dadaali doonaa waynu beelbeel iska wada taagi doonaa insha Allah taala marka waxaan leeyahay maanta soo dhaweynta aan soo dhaweyseen sida qiimaha caadada iyo dhaqankeedii ahayd aad baa ugu maasantiin وانا كفر احسن ايماتك كده وشكرا جزيلا هذا ما